shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu falanqeeyay sidii loo fuli lahaa amarkii ra'iisul wasaaraha ahaa in xukuumaddu ay si buuxda uga shaqeyso hirgelinta doorashooyinka dalka oo xilligeeda lagu qabto. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa furay shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay, waxaana shir gudoomiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuled Qadar. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey ayaa sheegtay in guddigu ay diyaariyeen tallaabooyinkii farsamo ee laga sugayay si loo hirgeliyo doorashada. kulanka ayaa looga dooday baahida degdega ee loo qabo in wadatashi loo dhan yahay ay yeeshaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta. xubnaha guddiga ayaa si wadajir ah hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed oo gogosha u xaaraa in laga gudbo arrimaha farsamo ee doorashooyinka, kadibna lasoo bandhigo qorshayaal cadcad oo waqtiyeysan. wasaaradda amniga, wasaaradda maaliyadda iyo arrimaha gudaha ayaa iyaguna soo bandhigay qorshayaasha uga aadan doorashooyinka. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shirkii golaha wasiirada ee Khamiistii la soo dhaafay ka shaaciyay in shaqada ugu muhiimsan ee waqti xaadirkan hortaala dowladda federaalka ay tahay hirgelinta doorashooyinka dalka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.